بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، walaalaha Soomaaliyeed meel walbo aad joogtaan iga hooya hadiyadan qaaliga ah ee aan idinkaga sido madrasatu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. walaalayaal waxaan ku sugnahay Nairobi, ayaan joogaa oo aan u imi dacwo gaaban ama safar gaaban oo dacwo ah. in badan oo dhalinyarada ahna waa la kulmay. runtii waxyaabaha ugu waaweyn ee aan dhalinyarada Soomaaliyeed ee aan la kulmay kulana kulmay halka Nairobi Kenya aan kala hadlay waxay ahayd xubinkan qaaliga ah ee Ilaahay nagu manaystay oo ah qalbiga. qalbigu waa ogsoontihiin xubnaha 360 ah ee Ilaahay nasiye ka ugu qaalisan weeyaan. Ilaahay kitaabkiisa iyo sunnada shariifka ah, sunnada rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam waxay daa'iman nagu booriyaan in aynu ilaalino qalbiga. qalbigan waa kan nagu xiraya Alle subhanahu wa ta'ala, waa kan daa'iman Ilaahay uu la xisaabtamo. maxaa wacay waxa aynu ku hadalno, waxa aynu maqalno, waxa aynu aragno iyo wax walbo de aynu sameeyno, hadduu noqdo hadal iyo hadduu noqdo ficil, halka kaydinaysa waa qalbiga. qalbigan haddii aynu nadiifin weyno oo aynu ilaalin weyno, ku xiri weyno antivirus oo aynu sifayn weyno, waxaynu shalaynaynaa maalinka qiyaama maalin shalay uusan waxba tareen. soo ma ogid wax walbo aynu aragno, wax walbo aynu maqalno, wax walbo aynu ku hadalno, qalbiga isagu wuu iska kaydinayaa. isagu wax ma kala soocayo. yaa la rabaa inuu wax kala sooco waa annaga. hawlahan galaya iyo waxyaabaha galaya qalbiga iyo qalbiga dhexdooda inaynu dhigno antivirus ayaa la rabaa, filter, oo aynan u ogolaanin qalbigeenu in uu galo wax xun, wax madoobeynaya, wax wasakhaynaya, wax halaynaya, wax tashwiish ku furaya. maxaa wacay qalbiga haddii dhibic madow ay gaadho ama wax madow aynu gelino ama dembi waxaanu Ilaahay raali ka ahayn haddaynu dhigno, waxaa xirmaya oo go'aya xiriirkii annaga iyo Ilaahay noo dhaxay. xiriirkeenu haddii uu go'o waxaynu galaynaa cadaabkii. walaalayaal, maalin maalmaha kamid ah ayaa rasuulkeena suuban sallallahu alayhi wasallam isagoo u sheekaynaya saxaabadiisa oo uga sheekaynayay waxyaabihii wanaagsanaa risaaladii, ayaa wuxuu yiri albaabkan waxaa ka soo galaya, waa masaajidkii Madiina, masjidun nabawi, albaabka waxaa ka soo galaya nin ahlu janna ah. saxaabadii waa yaabeen. waxaa la yiri yuu noqon doona talow. nin waxaa ka soo galay iska simple ah, iska basiit ah, garkii biyihii weysadii ay ka qoyan yihiin, shaarku u laaban yahay, kilkilaha ku wataa dacaskiisii, simple. ma allaala markuu la arkay dadkii uu salaamay, wuu tukaday, wuu baxay. maalinkii labaad ayuu yiri haddana waxaa ka soo galaya nin ahlu janna ah, waa isla ninkii. maalinkii saddexaad ayaa wuxuu yiri ninkii waxaa ka soo galaya nin ahlu janna ah, waa the same one, waa isla ninkii. saxaabada caado ayay leeyihiin. caadadooda waxay ahayd in wax walbo khayr oo loo sheego in ay aadaan oo ay u dhaqtamaan. Abdullah ibn Amr ibn Aas radiyallahu anhu ayaa ghayr qabatay, wuu masayray. ninkan 3 maalin wuxuu ku mutaystay jannada. wuu raacay, wuxuu yiri saaxiib, waxaan aabahay baan isa soo dagaaloon isqabanay, 3 cisho ayaan dhaar ku maray gurigiisa inaanan tagaynin, waxaan rabaa inaan gurigaaga tago. gurigii baa la geeyay. 3 cisho Abdullah ibn Amr ma aanu seexanayn. muxuu rabaa inuu ogaado ninkan wuxuu jannada ku mutaystay. wuxuu yiri Abdullah ma seexanaya marka, ishiisu waa ninkan ficilkiisa. markaas wuxuu yiri ninkan day waa salaatuleyl xataa inaanu soo kicin baa laga yaabaa. just fiir waxyaabuhu ku arkay waxay ahayd markuu isgadinayo oo uu isrogayo ayuu adkaar akhristaa ninkan. Abdullah yaa tukada oo salaatuleyl tukada. 3 cisho markay dhamaatay oo wax buuran aanu ku arkan ayaa wuxuu yiri nin yahow, aabahay isma soo dagaalin, waxaan 3 cisho kaaga codsaday inaan kula seexdo waxay ahayd waxaan maqlay 3 cisho rasuulka dhahaya sallallahu alayhi wasallam ninkan waa ahlu janna. ma ii sheegi kartaa
intaan kugu arkay wax ka duwan oo camal ah oo aad samaysay oo aad jannada ku mutaysatay wuxuu yihi wallahi garan maayo wuu fikiray cabdullaahi iyo bixi rabaa wuxuu yihi war ukaadi nin yahow arrin baa jirta habeenkii marka aan seexanayo weligay ma seexan anoo qof walaalkay ah muslim ah laabta wax ugu haya ma aanan seexan cabdullaahi iriduu kasii baxayey wuu soo laabtay wuxuu yihi wallaahi waa tan ku geysay jannada waa tan aynaan heli karin qalbiga eeg weligay uguma aanan seexan oo kuma seexan oo ma ledin anoo qof walaalkay xarash u haya anoo walaalkay halkaa qalbiga u buuxo xasad iyo xumaan iyo madow iyo maaragtay dee bushi u haya weligay ma aanan seexanin yacni arrinkaas waa arrin aan la heli karin haddaad heli kartid addoonkii allow haddaad heli kartid waa waddada ugu dhow ee jannada aynu ku tegi karnee in badan bay soomaali isdagaashay in badan bay soo kala tagtay in badan baa lays caayey oo lays dhacay oo lays dulmay oo wax la kala qaatay oo gacmuhu isdhaafeen afafku isdhaafeene haddaad heli kartid maanta waad nooshahay in qalbigaaga aada nadiifisid oo aad qalbigaaga sifaysid kii reerkiinii dhacay kii ku dilay kii aabbahaa dilay kii ilmaha agoomaha ka dhigay hooyadaa garoob ka dhigay war haddaad kartid in aad cafisid maanta oo aad ka saartid qalbigaaga ka saar waa sacaado adduunyo iyo sacaado aakhiro adduunka intaad joogto adigana welwelkii wuu ku daynayaa kurbadii wuu ku daynayaa culayskii aad ninkaa iyo xarashkii aad u haysay kaa ku dulmay waxa waaye waa kaa baxayaa maalinka qiyaame ma dheera maalinka qiyaame yaynaan dheeraysanine maalinkaana waxaa la hubaa qalbigaaga haddaad nadiifisid inaad jannadii gelaysid waa arrinka ugu dhowey jannada lagu gelayo soo garan maysaan marka jannada la tago xataa haddii ilaahay ahlu janno kaa dhiga ilinka jannada markaad taagan tahay adoonan geliba mayside waxa waaye iyadoo qalbigaagu buuxee ilaahay baa iskaan marinaya qalbiyadii qof aan iskaan la marinin qalbiga ma gelayo jannada ilaahay baa dhahaya wanazacnaa maa fii suduurihim min gillin ikhwaana calaa suruurin mutaqaabiliin waxaanu siibeynaa waa dadka ahlu jannaha ogo wax laga siibaya waxaanu tirtireynaa oo aanu bixinaynaa dadka laabta xarajka ay isugu hayeen xumidii iyo madowgii iyo dhoobadii iyo wasakhdii iyo xasadkii iyo balaayadii buuxday qalbiga waanu masaxaynaa maxaa wacay jannada uma suubado in qalbiga qofku madoobaada waa la tirtirayaa eeg mar allaaliyo marka la tirtiro qalbiyadii dadku siday noqonayaan ikhwaanan calaa sururin mutaqaabiliin dadkii waa walaalo maxaa walaalo ka dhigay maanta cashaan qalbiyadii baa la tirtiray oo la nadiifiyey waxaan hubaa haddii adduunka anagoo joogna qalbiga aan tirtirno oo aan nadiifino xumida iyo balaayada iyo maaragtay cudurka ku jira aan ka saarna sida saxaabiga jaliilka ah oo in aan fududaanayno idaylkeen anagoo adduunka joogna in aynu noqonayno ahlu janno walaalana aynu noqonayno inama almu'minuuna ikhwa soomaalay hal iscafiyo hal iscafiyo qofba qofka kale waa inuu cafiyaa adduunyo waxa la iska qaatay waa xaaba adduunyo waxa la iska qaatay waa waxaan waxba ahayn waad noolaanaysaa waqtigaagi waqti aan ahayna waxa waaye waqtigaagi unbaad adigu dhimanaysaaye soomaali aynu iscafino idaylkeen walaalaynu nahay aynu iscafino adduun iyo aakhiro aynu walaalo noqono walaalo aynu noqono si jannada ilaahay aynu ugu raaxaysano inta ayaan kusoo gabagabaynayaa astawdicukum allah alladhi la tadiicu wadaa'icuhu assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatuh